hooyo Soomaaliyeed ayaa booliiska gacanta ku soo dhigeen kadib markii ay dhaawac u geysatay caruur ay dhashay. Caruurtaas oo laba ahaa mid ka midna uu yahay dhaawaciisu halis. Hooyadan oo magaceedu yahay Sacdiye Maxamed ayaa sida la sheegay ka xanuunsan dhinaca dhimirka, haddana aysan xaaladeeda wanaagsanayn. Caruurtan ayaa la sheegayaa da'dooda inay tahay 4 jir, 6 jir. Waxaana sidoo kale jira mid saddexaad oo isagu ka baxsaday kaasoo darisku ay u fidiyeen gurmad. Intaasi kadib waxaan la kulannay hooyada dhashay gabadha falka geysatay iyo qaar ka mid ah ehelada kuwaasi oo la hadlay Nabad TV. waxaan ahay Sacdiye Maxamed hooyadeed dhibka dhacay waa aad iyo aad baan uga xumahay, laakiin waa isku dayay aad iyo aad aan ugu dadaalay in iyada iyo ilmaha aan kala safety gareeyo. waxaa dhacday habeenada ka mid ah inaan 10 jeer inaan booliiska wacay ay xataa booliiska markii dambe noo hanjabeen ay nagu yiraahdeen mar dambe hadaad na soo wacataan iska jir. marka haddii booliiskii wadanka hogaaminayana uu ku diiday haddana waxaa dhacday in ay dhaawac injury ay aniga i gaarsiisay. markay dhaawac i gaarsiisayna waxay dhaheen inaan xirnaan rabaa. waxaan ku yiraahdaa xirina gabadhan xiritaan uma baahneed daaweeye. markii daawadii iyo wixii ay socotay looyarka ay qabsadeen baan la hadlay. waxaan ku iri gabadhan way xanuunsan tahay, dhib ha u geysanina ee daawada siiya, beenay sheegtaa, daawada way daadisaa, mana ay jecel inay daawada cunto. aniga warkayga qaata, ilmaha safety gareeya, iyadana hala safety gareeyo, annagana na safety gareeya. gabadhaas ilaaliya oo daawadeeda siiyaan iri, cid iga hoos qaaday ma laha. intaasoo mar baan looyarkii la hadlay, aan cod u duubay, hal bil baan ugu jiray maxaa lagu dhahaa laynka oo la hadlayna anaga iyo dad kale. wax iga dhageystay ma leh. booliis waan wacay, looyar waan wacay, cid walba waan la hadlay, cid iga war hoos qaaday ma laha. maantana xoogoodii iyo awoodoodii la soo baxeen. dadweynaha waxaan u sheegayaa gabadhaas wixii caawin kara, dhakhtarka xataa waan u sheegay, cid walba waan u sheegay, ciddii caawinaan karta oo ilaahay dartiis u caawin karta. waxaan leenahay gabadha ha la caawiyo oo Sacdiye Maxamed ilaahay dartiis ha loo caawiyo. anigoo Khadar Maxamed Xuseen ehelada maartay Sacdiye Maxamed waxaan aad uga xunnahay arrinta dhacday xalayto markay ahayd habeennimadii. arrintaas oo ah arrin aad u naxdin badan anagoo ah familkii ay ka soo jeeday Sacdiyo. dhaawacaasna waa maartay u geysatay caruurtii ay dhashay ayna keentay xanuun iyada hay in muddo dawladana aan la socodsiinay. booliiska intaasoo jeer la wacay, loo sheegay, la yidhi maartay gabadha dhibaatadaas haysta, xanuunkaas haya, nala arka. intaasoo jeerna maartay ay ehelkii hooyadeed ay u geysatay maartay dhaawac. kabacdi caruurtii marar badan ay dibadda ula baxday iyadoo waqti wintara xanuunka ma sababtaasoo tahay iyadoon daawadii isticmaalin, qof daawadii siinayana uuna jirin, ayna ka amar qaadanaynin. salaaligeed markii dawladdii arrintii aanu la socodsiinay eheladii waceen muddo badan booliiska lagu celceliyey, booliisku way u juuqi waayeen, way dhayalsadeen. arrintiina wax ka qabtaan qofkani waa qof maartay iska normal ayay u arkayeen. I don't know, ma garan karno wax caawimaad oo markaa nagala qayb qaateen ma jirto. markii maxkamadda maray 7 beri ayay maalmo soo hayeen. markay soo hayeen ka bacdi way soo daayeen, caruurteedina way siiyeen. marka waxa la yidhi intaasoo kilomitir uma soo dhawaan kartaan. magacayga waa Muna Cabdi, ku nool gobolka Minnesota magaalada Woodbury. waxaan aragnay wiil yar oo banaanka ordaya kaligiis oo qaylinaya. qaylada markaan maqalnay gabar dariska maqashay, markaasayna soo wacday gabar oo ajnabi ah markaa Soomaali ahaan nagayna soo wacday. markaa banaanka u soo baxnay waxaan arkay wiilka yar oo banaanka ordaya. markaan u tagayna waxaan arkay hooyadiis oo daba ordaysa. waxaan isku dayay inaan hooyadii la hadalno, aan ku niraahno isdeji, wiilkaaga wuu fiican yahay. marka hooyadii maynan u ekayn hooyo markaasi joog buuxda. waxaan go'aansanay inaan booliiska wacno kadib markii aan aragnay xaaladda inayna ahayn xaalad safe ah. kadibna booliiska ayaa yimid. waxaa jiray dhaawacyo ku yaalay cunuga 6 yearska ah iyo 2 gabdhood oo la dhashay oo mid ka mid ah ay aad ugu jirto xaalad halis ah. bismillaah, magacayga waxa weeyaan Cali Maxamed Ibrahim. xalay qiso oo
in yar murug leh baa meesha ka dhacday saqda dhexe habeenimo markay ahayd 12:30 camal 6 saac bar habeenimo mise 12 barko habeenimo ayaa markay ku aadaneed baan waxaanu maqalnay qayla oo ciyaal ah oo oynaya ayaan xaafadda laga dhex maqlay markaas waxaa dhacday dadkii oo dhan baa soo yaacay isla markiiba waxaa haddana dhacay jug badan oo ciyaal la qaraacay waxaas ayaan haddana aan maqlnay anigu qudhaydu gurigaan ku jiray gabadha gurigeedana arrintaas ay ka dhacday daris baynu nahay xaalad waxay ku dhamaatay maamada kaligeeda degneed waxaad moodaa in ciyaalka ay qaraacaysi mise ay la dhacday maaragtay waxa ulus ay la dhacday waxa ku soo dhacay manaqaan maamadu gabadha wanaagsan waxa iska hado xaafadda laga yaqaan oo yaro socda oo adaab leh oo ciyaalkeedana ka adag oo markastaba meel kasta u wadayso oo jecel xalay laakiin arrinta dhacday iyo dabeecadda maamadan ku ogeyn isku mid maahan marka ala kulli hal 3 ciyaal bay lahayd midna waaba 2 dhakhtar baa la geeyay hadda dhakhtar bay joogaan sidaan akhbaarkan ku qabno mid oo waliba serious xaaladiisu ay yara daran tahay midka kalena xaaladiisu ay iska caadi tahay cuniga saddexaad isaga iska soo cararayo guriga ka soo cararay si buu soo yara baxayo marka darisku ku cararay saasa maaragtay wuu ku badbaaday laakiin labada kale dhakhtar baa la geeyay arrintan ayaa noqotay mid aad looga naxay argagaxna ku abuurtay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan halka uu falku ka dhacay qaar ka mid ahna ay qireen in ay gabadhu tahay hooyo wanaagsan balse uu xanuunku ku kalifay inay falkan ku kacdo Asmar Cabdi Nuur Nabad TV Minnesota